بسم الله الرحمن الرحيم magacayga Suldaan Maxamed Xasan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba halkan salaan ayaan halkan uga soo jeedinayaa mid kale waxaan doonayaa maanta inaan halkan hadallo yar ka ilaahdo qodobadii uu shalay ka hadlay Sheekh Ibrahim oo ahaa mudxanay gudoomiyihii hore ururka al-Ittixaad uu ka soo farcamay ururka al-Shabaab uu ka sii farcamay marka anigoo taas mudxanay inaan doonayo inaan hadallo ka ilaahdo jawaabna ka siiyo qodobada shalay uu ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Ibrahim waxa uu sheegay inuu mudxanay halgan soo galay heshiisna soo galay waxa kale oo Sheekh Ibrahim sheegay inuu mudxanay uu dhexdhexaad ka ahaa wala hadalladii ururka NLF iyo dalka Itoobiya hadda ka hor Nairobi ka dhacay inuu dhexdhexaad ka ahaa ayuu sheegay waxa kale oo Sheekh Ibrahim sheegay inuu madaxweynaha talooyin badan u geeyay talooyinkiina uu ka diiday marka iyo qodobo kale oo aan doonayo inaan mudxanay halkan ka yiraahdo ayaan doonayaa inaan caawa aan idinla wadaago marka koowaad aan soo qaadanaya qodobkii ahaa Sheekh Ibrahim sheegay waxaan soo maray halgan iyo heshiis waxaan rabaa Sheekh Ibrahim inaan weydiiyo halkan uu soo maray muxuu ahaa halgan muxuu ahaa halgan khalada oo mandaleysnimo oo argagixisnimo ayuu halgankaasi ahaa oo halgan kolka horeba si khalada ku bilowday ahaa si khalada ku asaasmay ahaa halgan mudxanay حرام أيها هرجل الجيسا أيها هرجل كات كفون تميسو أقامتي لبضع بناء كدمتي كي أدوتي دنتي كي الشيء لبضع أقامتي كدمتنا وحمد خناي ووقف الله متشتو خلط أيات كل شيء خلط أيات كو أقام تميس أقام تاس الشيء كانت شيء سنة دقاله يخرجي يوحي أكثر شيء mid adiga kaliya qaatay ayuu ahaa waxa ma la ka sinin mid dabaqoodinimo oo aan lacag ku qaatay waxa wixii aad ku heshay ma waxba ka sinin aqoontii labada dhinac waxa ma la ka sinin haba yaraatee wax ka siin ma jiro dhaqaaliyaha carabta ka soo qaatay waa tan hadda ku tabashaynayso waa loo garanayaa dhaqaale ma lahayn miisaaniyada iyo kharashka maalintayna baadhigaana meel ka keentay ma jiro waxaweye mudxanay waa miisaaniyada iyo dhaqaalihii dabaqoodnimada aad ku heshay weeyaan marka aqoontii lacagtaas aad ku tabashaynayso maanta waxba ugu filla wax ka sisayna ma jiro marka halgan khalada ayuu ahaa halgan aad maanta ku faanto ma ahayn baqle heshiiskuna heshiis dabaqoodnimo oo lacag ku qaadanaysay ayuu ahaa aqoontii aad mudxanay ku qaadatayna waxba la ka siinin waan garanaynaa in hebel gidi waan garanaynaa halkay joogaan waan garanaynaa halgankaas mudxanay qaabkaas ayuu ahaa heshiiska bishana mid noocaas ayuu ahaa mid maanta ku faantami kartana ma aha marka inaad saas u ogaato ayaan mudxanay ayaan doonayaa marka labaad middan dhahaysa mudxanay wadahadaladii ururka NLF iyo dalka Itoobiya ee Nairobi hadda ka hor ay ku galeen dhexdhexaad ayaan ka ahaa dhexdhexaad ma la ka ahayn waxaad dhexdhexaadkeed ma jirto inaadan heshiiskaas mudxanay waa hadalladaas inaadan dhexdhexaad ka hayn waxaa Sheekh Ibrahim oo caddaynaya waxay cid walba og tahay inaad shalay NLF iyo al-Ittixaad markii ay doorka joogeen waa iyagii mudxanay isleynayay aad dadka badan mudxanay aad ka layseen aad ku gumaadeen mudxanay dadka badan iska disheen marka ururkii shalay markaad aad saas u leenayseen halka aad ku heshiiseen iyo goorta aad heshiiseen iyo cidda heshiiskeedin seexday horta mudxanay taas horta in ayaan ku weydiinayaa goorma horta iyaga heshiiseen aad NLF heshiis u raadiseen heshiiska ayagu horta ma heshiiseen halkeed ku heshiiseen yaa idin siixay
taan qanay waa su'aal shaqadan ku diin mid labaad heshiis ta oo la fi Ethiopia markaad maqasho dad soo boodisay aan la fartay heshiiska meela ku wakiilatay aan la heshiiska meela ku wakiilatay ma wakiilaya cid walba wada hadlayno oo midqanay adigu dhaxdhaxaad laga noqaa miyay oo laftiisa mis adiga dan shakhsi raadinaya taana ila kala caday baan tahay taana ila kala caday baan tahay dowladda Ethiopia iyadoo shabaabkeeda dagaalanaysa ciidamadeeda yaalinaysa marka labadii garabay shalayto midqanay aan la dagaalanay ayaan maanta dhaxdoodii midqanay heshiiska dhaxradinaya taa inay been tahay taa cid walba garanaysaa mana jirto kamana aadan raadinaynin weligaana kama raadinaysa shalay markii midqanay duurka midqanay aad dagaalamaysan eed oo nafla dagaalamaysan Ethiopia la dagaalamaysan deegaanka Soomaaliya la dagaalamaysan Saadiga laha waa laba gaale laaya shacabka markaad isku khudbadaynaysan shacabka khudbadaynaysan ma ku dhijirteen de allafna waa gaalo Ethiopia waa gaale laba gaala la dagaalamayna in caawiya shacabka Saadiga ku dhijireen Saadiga ku dhijireen laba gaala la dagaalamayna Saadiga ku dhijireen كما يوم فوق كلا تيجيس خامر بحلاي لأن حد كبتي حد كور رمالة كان نقول حتى لكبتي مرة بقى بتخناي ده هشيس فسوق هذانا بتخناي ده واقع وبعدها دمت يكويش تنا مسؤول بس الله فرق قرصة يتوبنا وقرصة إذا بتخناي ده كب عبحوا أيام تخناي كويش تانية الله يتوبيا هشيس كذا أبو قرر عيلات كمان لقوا كتير دلال كمان لقوم كرتي لقوم بحنا إن تسكو أكسرته أو الله تسكو أكسرته أو الله ما عادي ما فعلياتها أو الله فعل مصلحته وضعتها ما معارك كلا إثيوبيا لا تسكو صورته ما أورو أرجع حسابها أورو أرجع حسابها عالم كنا لا يقول فيها إثيوبيا لا يقول فيها مركا قالوا أورو أرجع حساب إن ده ولا هذا الإثيوبي الله فعل كده حكوا بس إنك هذا تتاكل من سورة بس إثيوبيا أنا كنت قلنا والله فلان كنت قلنا أذن بدالي تنت هذا من سورة بس مرة حقول له فكرة كده أركب السنة هذا هل كوك شغالي وطالباني مالها حسن تجمعين ما نتخلنا نتخلنا يصور كان بنت نتخلنا يالله فا نتخلنا هشيس كده والله إثيوبيا هشيس كده ويا ده هذا مصلحة كده دين أنت عندنا كاي الميسري شغلانه لقطة يجمع أنت أنت خرجت إيش شغلانه ومدحوينها ترين بدون نوكي أيام تخلنا يودي الصحب كاي مكاجي كم خزانين وأنا قام بليان من مكاجي صوته الشغلان وهي والله القرية إنه شيء متخلنا يد رجعيسوا ما أنتوا رجعيسوا طلق استوى كمان زاد ورجعيسوا مركز ده إنه مدحوينه طلق رجعيسنا وإنه كاقطه هذا كيف ليس هذا الصحب كاي مكاجي halka ay talooyinka argagixisada ay ka geysan kartaa ka shaqeyn kartaa waa Taliban iyo meelaha la midka ah ay fikrada argagixisada ay ka shaqeysan weeye meelaha talooyinka argagixisada looga baahan yahay marka taas inuu ka diido saxbu ku ha waan uga hambalyeynaya waan ku saxaya wallahi midda kale shaqeyn oo weydiiyay su'aasha ku weydiiyay markasta oo on ay Ethiopia ayaa waqti hadal bilaamaya ama qanay wada حاجات باللامانة يا مركب مقشم حدث أو مركب متخناي محد زوج استكتها أو متخناي ده أدميديا زوج استكتها أو أرنتها إن أطفال كويا لا توم محد متخناي أو عريس كوسرتها هذا واحد كود احتروا معه تبي يونلف مركز تو هذا كان السوق هذا إن صوت عكسه أو أطفال كويا لا توم أنت كويتش توا معه أرجع حسابها أنا في المتي أرجع حسابها مركب تبي متخناي من متريس أو الله من متريس مركز حاول ضمن كويتش ترتب حياتي إلا وقال له بيان هذا ما بدك عاد متخناي المقشي الله في إثيوبيا وهال باب الوضي والربي هراي معركة هاي إثيوبيا كتير تشرينها توي ما دام باقي يكون ما دام كان مقشي هذا يا متخناي وحاس متخناي يا صويرسا وهذا متخناي ده مرور بيننا استاقوا كل نقطة أيام مرور بس كديشة مركز ضمن كويتش تا واللوجي هاي وإن كلاسوين وبي وحكلامها وحا عقبت كوا ودب كوا مر والبنا كتحدريسا إن متخناي دي أونرف
ay Ethiopia waa soo heshiis ayaa cadow ayaa midkana ayaa dhib ku ah haddii aan lafta heshiis qaadanayso ama ay Ethiopia haliyaan nidaamkii daba dhigashada ahaa daba qoornimada adugu aad ku qaadan maayaan qorciideedna ka noqon maysid billaahna ka noqon maysid heshiiska midkana aan la fiyo Ethiopia qorciideedna ka noqon maysid daba ka noqon maysid billaahna ka noqon maysid marka mar walba inaad dantaa aad midkana aad u soo dhaxgasho oo dantaa aad ka dhaxfishato heshiiska ha isku degi taa waa khalad baan ku leeyahay mar kastana oo erayga soo baxana waa soo istaagtaa marka taa inaad dib uga noqoto ayaa midkana oo kaskaga dhaxbaxdo ayaa midkana dantaada halkaa kuma jirtay inaad kala heli maysid inaad ka dhaxbaxdo ayaan kugula talinaya maadaama midkana oon la fiyo Ethiopia ay kula garanayaan midda kale ururka oon la fiyo ururka al-Ittixaad waxay kala yihiin waa la kala yaqaanaa waa la kala garanayaa mid walba ahdaafta uu ku halgamaa la garanayaa mid walba midkana taargetkiisa la garanayaa ururka al-Ittixaad waa urur argagixisa oo caalamka iyo waddanka Ethiopia argagixiso looga yaqaano oo bini'aadamnimada jiritaanka bini'aadamnimada la dagaalamaya wey ururka oon lafno sida ay midkana ayagu sheegayaan ee ay ku halgamayaan ee ay midkana ay ayagu hadafkooda ku cadaynayaan maxaa weeye waa nationalist weeye nationalist baan nahay bay leedahay oon nationalist baan nahay bay oon leedahay adna waxaa leedahay Sheekh Bayno terrorist baan nahay marka adoo terrorist iyo oon lafo midkana iyadana leh midkana nationalist baan nahay isku meel ma tegi kartaan waana sababta keentay Ethiopia in ururka ONLF ay u aqoonsan weydo argagixiso oo ay tiraahdo argagixiso maaha oo midkana u aqoonsan weydo argagixiso waa sababtaas keentay adna sababta adigoo argagixiso maaha loo dhihi kari waaye waa taa fariin aan u soo jeedinayo ururka ONLF iyo fariin aan u soo jeedinayo Sheekh Ibrahim fariinta aan qanay Sheekh Ibrahim u soo jeedinayo waxa weeye Sheekh Ibrahim urur terrorist oo Ittixaad oo al-Shabaab abaatay waa loo yaqaanaa ahdaaftaadina asaasay weligeed haddana ay tahay adiga oo midkana ahdaafta oo saa tahay oo la faasu garab sawirin qof kale oo mucaarad kale Ethiopia soo garab sawirin midkana ha ka hadlin heshiiskooda ha garab istaagin ha ka hadlin dantii argagixisanimada halka ay ka shaqeynayso waa meelahaas Taliban iyo midkana meelaha la midkee halka la tag halka ay ka shaqeynayso la tag argagixisada laakiin ha isku dayin inaad midkana qorciidad ka noqoto wada hadalka iyo heshiiska ay oo la fiyo Ethiopia yalla qorciidad ka noqoto dilaal ka noqoto oo nacsi ka raadisay ha isku dayin argagixisada ka argagixisada kuwa koobo halka argagixisada ku shaqeysa tag taasha reeyma waana sida Sheekh Ibrahim maslaxadaada sida maslaxadaada waana saas waxa kale oo midkana iyaduna aan fariin u jeedino marka waxaan midkana markaan taayisiin waxay tahay maanta waa maalinka qalin halgan ku raasada halgan kiina ku raasada qalin sida ay ururada kale mucaaradka Ethiopia ka jirayba ay maanta Ethiopia u yimaadeen oo ay qalin ugu raasanayaan sida qalin ugu raasanayaan qalin ugu raasada Ethiopia imaad inaad timaadaan baan kula talinayaa anu kulli midkana ay shakhsiyan maadaama ururada kale mucaaradkaaba ay Ethiopia ka jireen ay qalin ku raasanayaan taas ayaa midkana ayaa tahay talada aan soo jeedinayo iyo fikirkan ururka oo fariintan u baaqayna midaas weeyaan iyada oo inaan mar walba aad ka taxadarisan midkana oo waliba idin ka digayo inaan midkana nidaamkii daba qoodinimada ahaa lacag ku bedelashada shalay uu Sheekh Ibrahim uu midkana uu heshiis ku qaatay oo kale nidaamka iyadoon ahayn nidaamka Sheekh Ibrahim iyadoon ahayn inaad midkana aad waddanka timaadaan sida kale ururada kale mucaaradka u yimaadeen inaad midkana xuquuqdiina iyo halgankiina aad ku raadisaan qalin aad ku raadsataan taas ayaa midkana ururka fariinta u soo jeedinaya ay tahay